الحمد لله horta qofku hadduu towbad keeno ilaahay uu dhaafaa watuubuu ila allahi jamiican sida laynoo faray baa laynoo sheegay towbaduna ciddii sideedii ula timaada ina allaha yakfiru dunuuba jamiican qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican dunuubta dhan uu dhaafaa shirkiga ka weyn waa haddii laga towbad keeno ilaahay uu dhaafaa ilahay waxaan ka rajaynaynaa uun sida aad rajaynaysa inay noqoto uu kugu dhaafo taasi waa mid laakiin axkaamta sharciga ee ka dhalanaysa ee waxa lagaa rabana masale kale waay innagu towbadii in la aqbalay ma ogaan karno in laysnoo dhaafayna ma ogaan karno waxaanu rajo wey rajada iyo dhannigaa wanaagsanna qofka muslimka way fiicanta oo ilaahay nabigaa bayna yidhi udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo isku halaynaya oo isku kalsoon in laydinka aqbalayo laakiin salaadahan kaa tegay fadhiyo hore inaan kaga soo hadalay baa dhici kartee waa dayn lagugu leeyahay iyo soonka kaa tegay wakti bay lahaayeen waktigoodina way soo dhaafeen laakiin cibaadaadka waktigoodu dhaafay cafis ma noqdaan fadayn ullaahi axaqu bilqadaa'i saasayna culamada jamhuurtooda u badan yihiin daynta ilaahay baa mudan in la gudo dad dhintay oo xaj lagu lahaa baa la yidhaha laga xajiyo kuwa soom kula dhintay baa la yidhaha laga soomo soonkii weli la isku leeyahay baad garanaysaa isagoo waqtigiisii dhaafay dee soonkii kaa tegay iyo salaadii kaa tagtay waa lagugu leeyahay inta aad garanaysana waad qadayn inta kalena istikfaar baad la iman taa weyta lagaa doonayo waxaan filayaa horena waa usoo tilmaanay labadan haddii waktigii la ilaalin waayey waa jiha munfaka weeye almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri inta la awoodataan la awoodin kuma dhacdo wakhaalafa araazi idi lmurakabu likulli juzin xukmuhu yansaxibu saaxibu maraaqi sacuud uu dhihi jiray